Assalaamu calaykum asxaabay, waxaan idiin haynaa filim horror ah oo la yiraahdo Day of Dead. Daawasho wacan. Bilowga filimka waxaana la tusayaa xaaladda magaalada intii uu socday weerarka zombiyuhu. Lama oga wax sababay in musiibadani ay dhacdo. Waxaynu aragnaa haweeney u eryanaya zombiye intii uu socday weerarka zombiyuhu oo ay ka go'an tahay marada. Goobtu waxa ay isku beddeshay 4 saacadood ka hor dhacdada. Qolka meydka ee jaamacadda Whitandal, dhowr arday oo caafimaadka ah ayaa waxay imtixaamayaan macallimiintooda si loo ogaado sababta keentay geerida qarsoodiga. Waxaana la kala Zoe, Abby, Beta, Suzu, John, Ronaldo iyo Dr. Beeman. Kadib marka ay dhammayso baadhitaanka, Zoe waxa ay si toos ah u aadaysaa shaybaadhka si ay u dhammaystirto cilmi baadhista shaybaadhka dhiigga. Dr. Beeman ayaa u soo dhawaaday oo ka codsaday inay ka qaado muunadda dhiigga Marcus oo ah bukaan leh unugyada difaaca jidhka oo aad u sarreeya marka loo eego bini'aadamka caadiga ah. Dr. Beeman wuxuu yidhi waa fursad cilmi baadhis. Zoe waxay aadaysaa si ay u aragto bukaanka uu Dr. Beeman sheegayo. Waxaan si cad u aragnaa Zoe ma jecla Marcus sababtoo ah wuxuu aad ugu baahan yahay inuu ku guuleysto jacaylkeeda. Dhab ahaantii Zoe waxaa lagu qasbay inay la kulanto isaga sababtoo ah muunadda dhiigga Marcus aad ayay ka duwan tahay kuwa kale. Marcus gacanta waxa uu ku qortay magaca Zoe waana uu jecel yahay. Nasiib wanaag markii uu is yidhi gabadhan faraxume waxa goobta yimi Abby waxayna tidhi way eriday Marcus. Abby waxa ay ku marti qaaday Sol dabaaldegga xafladda dhammaadka semisterka kaas oo lagu si kastaba ha ahaatee sida ay Zoe ku dhowdahay inay albaabka ka baxdo, Marcus ayaa gudaha u soo galay oo bilaabay faraxumeyn ka dhan ah. Laakiin markan weerarkiisii mar kale waa uu fashilmay sababtoo ah meydkii ay hore u baarayeen ayaa si lama filaan ah u kacay oo ku noqday zombiye. Isla markiiba waxa uu weeraray Marcus. Zoe way carartay isla markiiba way dareentay oo waxa ay tagtay qolka xafladda oo asxaabteeda ay u sheegtay. Laakiin ka hor inta aysan helin wax fursad ah waxay ku qabtaan waxaa soo weeraray Dr. Beeman oo isku beddelay zombiye. Waxaa soo raaca meydkii isku beddelay zombiyaha. Markay zombiye soo weerareen qof walba, Zoe waxa ay haysataa waqti ku filan oo ay kaga baxsato meesha. Jidii saaxiibadeed daaqada ayay ka baxsatay. Nasiib darro saaxiibadeed Abby lama badbaadin karo sababtoo ah waxa soo weeraray dhowr zombiye ah. Bini'aadamkii soo hadhay waxaa lagu hayaa god ay maamulaan ciidamadu oo ku yaala buuraha. Zoe waa dhakhtarka keliya ee ka hadhay. Waxaa loo xil saaray goob military. Waxay ka shaqaysaa sidii ay u heli lahayd tallaalka fayraska zombiya. Waxa ay lumiyeen xiriirkii ay la lahaayeen goobaha intiisa kale. Sanadkii u dambeeyay waxaa lagu qasbayay inay halkan naftooda ku difaacaan iyadoo ay baaritaan ku sameynayso. Hooyo la yiraahdo Wendy ayay u tagtay waxaana ku wargelisay inay gabadheeda Lily ay hayso qandho aad u sareysa oo aysan ka bogsan. Marka ay Zoe hubiso xaaladda Lily way warwaraysaa markay antibiyootiga ay siisay aanay wax saameyn ah ku yeelan. Sidaa daraadeed waxa ay ku degdegaysaa in ay la kulanto Michael oo ah sargaalka taliyaha goobtan. Zoe ayaa markaas si faahfaahsan uga waramaysa xaaladda Lily oo ah oof-wareen. Haddii aan si degdeg ah loo daaweyn nolosheeda ma badbaadi doonto. Zoe waxay weydiisatay Michael inuu u oggolaado inay aadaan shaybaadhkii caafimaadka ee hore ee jaamacadda si ay u helaan antibiyootiga saxda ah ee lagu daaweynayo Lily. Michael waxa uu oggolaaday inay tagto waxaana uu raaciyay qaar askartiisa ka mid ah oo la yiraahdo Parker iyo Lucky iyo Alfonso iyo Frank iyo Elias iyo Derek iyo Thomas. Waxa ay ka baxeen goobtii askarta waxayna aadeen inay tagaan jaamacadda. Intii ay dhexda ku sii socdeen waxa ka xumaaday gaadhigii wayna istaageen. Haddii uu goobtan kaynta ugu dhacdo cadceedu waxa ay la kulmi doonaan halis aad u weyn. Gaadhigii way hagaajin kari waayeen cadceediina halkaas ayay ugu dhacday. Waxa ay la kulmeen halis aad u weyn waxaana soo weeraray zombiyihii iyagoo kaynta meelaha ku fiifinaya ay askartiina heegan ku jiraan. Waxa ay koreen gaadhigii zombiyihiina uu soo weeraray halis ayay galeen.
gaarigiina way kicin kari waayeen. Ugu dambeyntii gaarigii waa ay kiciyeen waxaana ay tageen shaybaadhka jaamacadda halkaas oo ay doonayeen in ay dawada kasoo qaataan. Gudaha ayay u galeen shaybaadhkii iyagoo oo raadinaya dawadii. Ugu dambeyntii Soy waxa ay heshay dawadii wayna soo qaadatay, laakiin halkan waxaa ku jiray Marcus oo mar hore uu qaniinay meydkii oo isku bedelay zombie. Dawadii marka ay gacanta saa ugu dhigtay waxaa soo weeraray Marcus oo noqday horror waxaanu eryaday Soyna intii albaabka ka xidhay ayay xabado la dhacday halkaasna ay kaga badbaaday markaas zombiyihii. laakiin goobta Frank ayay ku cuneen zombiyihii. Ugu dambeyntii way kasoo badbaadeen waxaana yimaadeen goobtii. Markii dhacdada ay uga sheekeen Michael waa uu ka xanaaqay inuu Frank halka ku dhinto oo ay uga soo tagaan, laakiin zombiyihii Marcus waxa uu ku jiray gaariga hoostiisa waxaanu soo raacay gaariga. Ugu dambeyn goobtii wuu yimid dadku ay ku sugnaayeen waana kan gaariga hoostiisa ku jira. waa uu kasoo degay gaarigii waxaanu koray geed si uu u galo goobtii waa uu soo galay isagu waxa uu doonayaa Soy si uu u cuno. ugu dambeyntii waa uu soo galay goobtii meel sare ayuu Soy ka soo eegay. Soyna waxay daaweynaysay Lily. Soy oo soo socota waxaa ku soo cararay Marcus oo zombie ah way carartay waxayna gaadhay goobtii. waxaa badbaadiyay alaaramkay taabatay. askartii ayaa qaadatay hubkoodii waxayna ku badbaadiyeen zombie inay ka badbaadiyaan. ugu dambeyntii zombie Michael ayay soo weerareen goobtii bay ku cuneen. dadkii meesha joogoo dhan zombie ayaa soo weeraray kulligood halkii baa lagu wada cunay. goobtii waxa ay isku bedeshay wada zombie midhmidh ayaa loo ugaarsaday dadkii oo dhan. goobtii waxay isku bedeshay wada meyd iyo zombie. goobta waxaa ku soo hadhay nin khaliya oo askari ah. ninkiina waxa uu go'aansaday inuu istoogto isagoon istoogan ka hor waxaa aragtay Soy waxay ku qanacsan inuu istajiyo uu shaydaanka iska naaro. ugu dambeyntiina waxay shaybaadhkii bay geysay waana talaashay. ugu dambeyntii ninkii waa uu badbaaday bulshadiina halkaas ayay kaga badbaaday zombiyihii. dadkii oo dhanna nabad ayay ku sugnaayeen. ugu dambeyntii filimku waxa uu ku dhamaanayaa dadkii oo badbaaday. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe saar like nagu dhiirigeli nagu soo biir.